warahmatullahi wabarakatuh. Walaalaha qaaliga ah, kusoo dhawaada barnaamijyadeena iyo lecturedeena caafimaadka indhaha. Haddii ilaahay yiraahdo waxaan ka hadlaynaa maado cusub ayaa bilaabeynaa microbiology. Microbiology sidii maadooyinka hore ugu soo hadalna camal sida pharmacology ugu soo hadalna camal uga hadlaynaa. General oo casharo general ah qaadanayna kadib waxaan galaynaa ocular microbiology. General microbiology markii laga hadlayo ku dhawaad 50 cashar ka badan 50 video ka badan looga hadli karaa. waa soo qulaasay oo 2 cashar ku soo qulaasayna haddii ilaahay yiraahdo inta ugu muhiimsan kaga hadlaynaa. kadib waxaa bilaabeynaa ocular microbiology. Microbiology definition-keeda waxaa waaye branch of biology kaasoo dealing with microscope from the living organism that cannot seen the eye, naked eye. waa qayb ka mid ah biology-ga, branch ka mid ah biology waa kaasoo noolaha microorganism dealing with microorganism aanan qofka normalka ishiisa furan u arki karin, that cannot seen in naked eye. waa noolahaas aan ku arki karin ishaada furan tahay. tusaale ahaan waxyaabaha oo mataqaanaa oo ishaada markay furanta caadi u arki karin laazim microscope in adeegsatid loo baahan yahay. waxaa ka mid ah bacteria caadi indhaha kuma arki kartid, laazim waxaa ah microscope in adeegsatid. sidoo kale virology dhammaantooda waa barasho gooni u baahan tahay. bacteria inaad baratid, virology-ga, protozoology waxaa dhammaan waa branch ka mid ah culumta microbiology-ga ka mid ah. characteristic ayaa jiro oo organismskan sifooyin ay leedahay jiro. microorganismskan markii laga hadlayo nooleyaashan yaryariska characteristics ay leeyihiin jiro sifooyinka leeyihiin waxaa waaye usually inta badan waxaa waaye unicellular hal cell ayay leeyihiin. each cell waxay sameeyaan growth koritaan ay sameeyaan. marka cellskaasi microorganismskan waxay sameeyaan korinsho ay sameeyaan oo multiplication-ka. sidoo kale microscope markii lagu fiirinayo in size ahaan microscope-kooda aad ayuu u yaryahay. marka waxaa ka hadlaynaa bacteria maadaama soo hadalna branch ka mid ah bacteria, viralka, mataqaanaa protozoa dhammaantood soo dhahnay mataqaanaa waa branch ka mid ah microbiology-ga. waxaan ka hadlaynaa bacteriada characteristics sifooyin gooni leedahay. sifooyinka leedahay waxaa ku ka nucleus-keeda waxay leeyihiin bacteria nucleus ay leeyihiin, nucleus body ay leeyihiin laakiin malaha nucleus xuub oo nucleus membrane malaha. sidoo kale bacteriada waxay leedahay both oo nucleic acid oo DNA RNA ay leedahay. shape ahaan bacteria shape-keeda labaa loo kala qaadaa, lower bacteria iyo high bacteria. lower bacteria waxaa waa round ama oval wareeg waxaa loo yaqaanaa markay bacteria wareeg tahay cockle ayaa loo yaqaanaa. markay round ama round shape markay tahay waxaa waa bacilla. markay spiral shape ay tahayna waxaa waa spiral. marka waa lower bacteria. high bacteria laba lay inay tahay xuubka oo qaybtan hore filamentous inay tahay ama filamentous ama sheet inay tahay. marka cell ahaan characteristics-keeda waxyaabay leedahay gooniga u leedahay general guud ahaan bacteria waxaa ka mid ah waxay leedahay bacteria cells ayay leedahay. cellskeeda waxaa waa general unicellular hal cell ayay leedahay. bad laakiin mostly waxay u samaysan tahay iyo shorti ama long gene ay mataqaanaa ay u habaysan tahay cellskaasi. relation hostiga meelaha ku nooshaa marka waxyaabaha ku nooshaa waa normally waa parasites ku dul noole waxay u tahay in animals xoolaha marka animals markii laga hadlayo dadka way soo hoosgalayaan dadka xoolaha caadiga waa ku dul nooshaa. sidoo kale plantiska mataqaanaa dhirtana way ku nooshaa bacteriada. waxaa kaloo jiro some cause dhammaanta marka plantiskaas iyo xoolaha iyo dadka iyo dhirtaas ay ku nooshahay some cause dadka bini'aadamka marxuu ku sababtaa disease ayay ku sababtaa. waa characteristics-ka leedahay. characteristics-keeda aad ay u badan tahay mataqaanaa waxaa kaloo jiro general characteristics of bacteria marka laga hadlayo waxay leedahay reproduction way tarantaa bacteriada. qaabka u tarmayso qaab asexual u tarantaa, qaab asexual ayay u tarantaa. sexual asexual marka laga hadlayo sexual waxaa lahaa mataqaanaa tarankaas reproductionkaas la sameynayo in laisku imaado, tusaalehaan rag iyo dumar inay isku imaadaan. asexual markuu yahay marka laiskuma imaanayo tusaale ahaan waxaa la sameynaa ugxaana la dhigaa, ukumaa la dhigaa, ukumahaasaa la bacriminaa. marka
cimaamad bacrimin saas darteed ay mataqaanaa oo ay mataqaanaa reproduction ku sameynaa. markii characteristics of bacteria markii laga tago bacteriadan kasoo hadalnay waxay leedahay shape muuq gooniya leedahay. muuqeeda markuu koogal wareega hadaan kasoo hadalnay waa spiral shape waa nooca ugu caansan marka kookalka bacteriadaas waxay leedahay 4 nooc ay leedahay. waxay leedahay staphylococcal, streptococcal, diplococcal, meningococcal iyo gonococcal. dhamaantooda waa reero coccal lahaa waa shape of bacteria nooc kamid ah. bacilla shapekeeda midaan hadda cocalka markii laga hadlayo iyada wareeg waa oval waa wareeg saas u wareegsantahay. spiral shapekeeda iyada waa rod shape waa waxay leedahay marka gram stream oo gram positive iyo gram negative ay leedahay. gram positive bacilla waa sporin laba ay noqon kartaa sporin ama non sporin ay tahay. laakiin gram negative ka waxa ku jira marka waxay leedahay salmonella bacteria lahay iyo shigella bacteria lahay ay leedahay. fibroska asiga waa coma shapekiisu waxaa coma waxaana ugu caansan bacteriadeeda fibrocolera ayaa ugu caansan. spiral shape iyo waxaa laba nooc ayaa ugu caansan spiralka structure iyo spiral ugu caansan. filamentoska nooc kamid spiral shapes of bacteria. waxaa jira marka mataqaanaa markaan kasoo hadlayna structurekeeda markii laga hadlayo guud ahaan bacteriada waxay leedahay essential structure guud ahaan special waxay leedahay structure gooniya. sidoo kale waxay kaloo leedahay special structure structure u gooni bacteria ay leedahay. haddaan ka bilaabno essential structureka muhiim u tahay bacteria dhan waxay leedahay cell wall ay leedahay. cell wall ku dahaaran cellkaas ay leedahay. waxay kaloo leedahay cell membrane xubin ku dahaaran cell membrane. sidoo kale waxay kaloo leedahay bacteriada nucleus membrane ay leedahay. cell membrane ay leedahay nucleus membrane ay leedahay cytoplasm ay leedahay. essential special structure bacteriada mid gooni u leedahay. bacteriyaasha qaarkood waxaa waaye capsule ay leedahay, flagella ay leedahay, pila ay leedahay, spore ay leedahay. markii laga hadlayo guud ahaan bacteriada intaas ugu caansan. laakiin markii laga hadlayo mid walba laga sii hadlaa hadii la cell wallkeeda laga hadlaa cell membranekeeda laga hadlaa hadii la iyada mid walba cashar sii noqonaa. marka casharkeena koowaad introduction kaane waxaan kaga hadlaynay introductionka oo definition of microbiology iyo nooca ugu caansaneeda soo hadalnay mataqaana bacteriada. haddana qaybteena ku xigta waxaan galaynaa infectionskan ka hadlaynaa oo bacteriada qaabka infection microbiology ugu sababta lecturekeena xiga. intaan wixii su'aalaha qabtiin dhanka commentina. Assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.